waxaa beennimadii xalay ahayd si weyn dalka Soomaaliland looga dabaaldegay sanad guuradii 59 ee ka soo wareegtay maalinteena xornimada ka qaadanay gumaysigii Ingiriiska. Munaasabad ballaaran oo ka dhacday qasriga madaxtooyada Soomaaliland ayna ka soo qayb galeen guud ahaan boqorweynta dalka ayaa lagu xusay maalintan xornimadii aynu qaadanay xamar la geeyay. taas bedelkeeda waxaa dowladda hoose ee Muqdisho magaalo madaxda dalkeenu dariska nahay ee Soomaaliya ay xukuumadda mushaakilka badani hadheeyay ee dalkaasi gacanta u galay ay ku qabatay baadhiyaan dad badani ka soo qayb galin ay ku sheegeen inay xusayaan 26 Juun. Haddaba dad badan ayaa isweydiinaya in Soomaaliland maalinteeda xorriyadda Soomaaliyana u sheegto inay xusto warbixinteenana ujeedada labada dhinac ayaynu diiradda ku saari doonaa. 26 Juun 1960 halgan dheer oo siyaasadeed iyo mid hubaysan ayay maxkamiyadda Ingiriiska ee Soomaaliland xornimadeeda kaga qaadatay heshiis dhex maray boqortooyada Ingiriiska iyo madaxdii hogaaminaysay halgankii siyaasadeed. Waana sababta Soomaaliland u xusto sanad kasta oo budhigu ah xornimo ay shisheeye ka qaadatay laakiin aan midho dhalin. Waqtigaas oo reer waqooyiga Jibba qaaday oo kuwa ay u arkayeen walaalahood calanka ugu geeyeen taasoo dhaxalsiisay dhimasho iyo dhibaatooyin kale oo ilaa maanta la dhaceeyo boogihii iyo dhaawacyadii laga dhaxlay. Jawigii xorriyadda iyo midnimadoonka ay qabeen shacabkii la doodsiiyay reer Soomaaliland maalintii 26 Juun 1960 waxa uu muuqaalkiisu ahaa sida codka dareen kale Cabdullaahi Suldaan Timcadde waxa dheeraa suugaan tiro badan oo dharaarta gobonimada la curiyayna kamid ahayd heestii caan baxday aan maal lahasheena maandeeqa oo curiyay abwaan Saxardiid Maxamuud Jabiye oo 15 bishan Hargeysa ku geeriyooday ku nuuqeynayeen hobalkii Maxamed Axmed Kuluc ay u jiibinayeen kooxdii walaalaha Hargeysa ee Hargeysa ka dhisnayd 60kii dhammaantoodna ahaa dadkan u dhashay. suugaantan oo kamid ahayd hantida aynu xornimada ku qaadanay waxa iyana si khaldan u isticmaasha Soomaaliya. Haddaba waqtiga suugaantan Soomaaliland la curiyay Soomaaliya waxa lagaga heesi jiray af Talyaani. Fanaanka kaliya lahaayeen waxa uu ahaa Qaasim Hilowle. Muuqaalka Hargeysa iyo Muqdisho kala lahaayeen dhanka suugaanta waxay ahaayeen marka Hargeysa lagaga heesayay murtidaas. Muqdishona waxa lagaga qaadi jiray Quando sorge la luna nel ciel, tutta dorme qua giù, accompagnami tu con la tua canzone. Hai oran iskata kaiman, hadan hetadiso hele. munaasabada Hargeysa ka dhacday waxay ahayd mid aad loo soo bilay farsamo ahaan iyo ficil ahaanba looga shaqeeyay. Soomaaliland guud ahaan aanay u kala hadhin looguna dabaaldegay maalintan aynu dejinay calankii isticmaalka. Walow waqtigaas la saaray calanka dunida ugu sumcadda xun waqtigan oo Hargeysa lagu sameeyay tilmaamayayna midnimo shanta Soomaaliyeed loo helo balse ay meesha ka saareen reer Soomaaliya. Riyadii Soomaaliland 60kii qabtay iyo rijadii Soomaalida shanta ah oo midowda balse markii labada Soomaaliyeed ee koonfur iyo waqooyi midoobeen cabsi kale ku abuurtay Soomaalidii Djibouti, Soomaali galbeed iyo NFD. habdhaqankii koonfur laga bartayna sababay inay gaarkood kuwa isku imaamadaan qaarkoodna midnimo ka doorbidaan in ay ilaa maanta gumaysiga iskaga sii jiraan. laashayna riyadii ahayd Soomaali weyn la helo. xafladda canjilka iyadu Muqdisho ka dhacday ayaa ahayd mid u muuqatay hinaasa iyo ku xumayn oo kaliya ma lahayn muuqaal bilan oo u qalma mid xornimo lagu xusi karo. dad badan kama soo qayb gelin. kuwan aad arkaysaan waa laba nin oo Soomaaliya siyaasiyiin waaweyn looga yaqaano si aanay aqoon dadka Soomaaliland la sheeganay inay ka soo jeedaan Soomaaliland. mid waxa loogu yeedhaa Cismaan Kalluun midna waxa la yiraahdaa Jaamac Maxamed Qaalib. bal u fiirso hal qof ma daba fadhiyo haddana midnimo ayay ka hadlayaan waxayna joogaan waxay ku sheegeen xus xorriyadeed. ninna ma qaybin karo dalkan dabaaldegi baa socdaa sida loo bixiyo global
somalilan dadka khudbada ka jeediya xafladu ay ka mid ahaayeen wasiir axmed muumin seed siyaasi axmed xaaji cali cadami abwaan maxamed aadan dacar gudoomiye salebaan maxamuud aadan iyo mas-uuliyiin kale dhammaan waxay hadaladoodu ahaayeen kuwa mug iyo miisaan leh nuxuriyeyo oo leh balaaqad iyo hadalyaqaanimana laga dheehan karo dhinaca kale siyaasiyiinta baadhiga xamar ka hadlayay walow aanan magacyadooda garanaynin waxay u ekaayeen qurbajoog aan aad af soomaaliga u aqoonin eray bixin iyo halhelisna ay ka maqan tahay khudbado bilaa nuxura iyo hadallo aan soomaaliya uun iyo midnimo ka fahmay ayay ku hadlayeen markii aan dhegaystay muuqaalkooda oo 2 saacadood ka badnaa mararka qaarna waxaa la moodayay inaanay baaf soomaali ku hadlaynin oo luuqado cusub oo iyaga u gaara ay ku wada hadlayeen inta aynan gelin nuxurka hadaladii madaxweyne muuse biixi cabdi iyo farmaajaha soomaaliya aan eegno arrin kale oo ilaa galabnimadii warbaahinta somalilan soo gaadhaysay mas-uuliyiinta soomaaliya waxay isku dayeen inay warbaahinta somalilan iibsadaan si ay xafladda muqdisho layf ugu sii daayaan kana saaraan meesha tarunta ah iyo xaqa dalkooda hooyo iyagoo soo maraya wakiilada muqdisho telefishinadani u jooga galabnimadii qaar ka mid a telefishinada somalilan laga leeyahay waxay ku baayaceen $10,000 inay xafladda ku sii daayaan oo la siin doono maalinta sabtida arrintan ayaan suurtagelin waxayna dhammaan telefishinada somalilan sii daayeen muuqaalka xafladda xuska juun ee qasriga madaxtooyada somalilan ka dhacaysay telefishinada home cable ariel star iyo saab ayaa si toosa u gudbinaya munaasabada hargeysa ka socotay marka laga yimaado telefishinka qaranka jamhuuriyadda somalilan telefishinadan ayaan iyagu haba yaraatee wax lacaga ku qaadanaynin baahinta xafladda xuska maalinta qarankani leeyahay sidoo kalena laguma soo casuumin oo waxay ka xiganayeen baahinta telefishinka dowladda waxayna u gudanayeen waajibaadkooda muwaadinimo iyo ka dalku ku leeyahay waxaa xusid mudan in telefishinka ariel oo dalka laga mamnuucay xayiraadna la saaray haddana wadaniyad ballaadhan muujiyey oo xafladda layf u gudbinaya si lamida telefishinada kale dalku sidii ay u baahinayeen soomaaliya waxaa u sii daynayay telefishinka universal oo kaliya marka laga yimaado ka afkooda ku hadla universal oo isagu mar walba ka safta somalilan waxa uu maalinta xorriyadda ee dalkani leeyahay ay siiyeen muqdisho qaabkii ay u baahinayeen xafladda xamar oo aan daawaday ayaa ahayd mid ay ka muuqatay cunsuriyad iyo duudsi toos ahi wariyaan xirfad badan ka muuqan oo barnaamijka daadihinaya waxa uu aad ugu celcelinayay waqooyiga Soomaaliya ciida Soomaaliya xornimo qaadatay iyo waliba midnimo waxa uu ugu yeedhayay iyo erayo ka dhana jamhuuriyadda halka telefishinada dhigiisa ee dalkaasi ay leeyihiin sida Kalsan Somali Cable iyo Goobjoog ixtiraameen qadiyadda Somaliland aanay nasiideyn barnaamijkan ka dhanka ah dalkan xorriyadiisa lagu haysto laakiin Universal ayaa isagu mar walba caadaysta aragtiyaha ka dhanka jiritaanka Somaliland isagoo waliba xarunta dhaqaalaha ugu badani ay ka soo galaan ay Hargeysa ku leeyihiin haddana dawladda ayaa indhaha ka lalisa dhibaatada uu dalka ku hayo telefishinkaasi qofka daawada waxay baahinayeen wuxuu isweydiin lahaa haddii ilaa wariyaashoodii iyo warbaahintoodii xumaanta inta la eeg muujinayaan waxa ku weyn xakameeyay ee ka xanibay danaha dalkooda madaxweynaha Somaliland ayaa khudbada ka muuqatay lixla jeclo wadaniyadeed daacadnimo dandal iyo dadeed ayuu ku jeediyay munaasabada waxaana hadaladiisa uu ku soo qaatay ballanfur Soomaaliya shalay ku sabaysay beesha caalamka wada hadal kooban uga furu lahayd Nairobi Somaliland iyo Soomaaliya oo ay u jareen iyagoo waliba waftigoodii Nairobi yimaadeen maxaynu ku wada hadlaa tanaya iska daayo tii ay duugeena taariikhda oo isagu joogay ee cilmiga arkaysa uu kala wareegay afka gobolada iyo qoybaati xagaynu ka heshiinayna soo afgaranayna kuwa weeraya waa tagaya iyo waxba ka waraya bandhigka kuwa magacaaga ma aqaano oo wixii aan ahayd horada firaya afka loo tagaysa maxay kala hadlaysaa shirkan Nairobi ka dhacay waxa joogay soo abaabulay dawladaha Yurubiyanka oo dhan waxa joogay 6 safar joogeen waxa kale joogay dhamaantood miiska uu qaabilsan geeska Afrika dawladaha tirada Yurubiya dadka uu qaabilsan geeska Afrika ayaa shirka joogay waxa joogay igad إلى معناتي عبد الرحمن توري يوسف علي الشيخ برية أي هذا الكمبيوتر كان استعمال سوق كصبرو معناتي هذا واحد سوق الكمبيوتر إيه هو الرئيس قوي سأشك عقاب قدر قرار كيسي قدر لك من الله في عليه سيراية قدر يعني كسوق وياهني قرر هذه وماها وما الله ما قضبه لما تقول له هذا مستقبلي وان استلي وان كبوري حتى بلاد هاي كله قوي شيء وان يرجع يسوق له كرمايه حريتي وتغير من اعتراف دولتي هذا بدل كده inaga waxa joogay oo hawsha tagay wasiirka khaarijiga waxa sii joogay halka wasiirka loo jeeday baasha waxa isaguna u joogay hawshii account oo ka warramay doono mareeyaha dowladda
يهود ساكن تضودي مركين صوت وصي أي إلى هذا الولد ما شكتني أنا بدور ده أنا صار قلبي نشف لو بتوصل ولا فريا كهذا وإيمان وعي ولد الواقع شيء قلت لي ما خلصتي سوى عنه ولا جيستي فقاره أي عدة وحشة هذا عالم كانوا وحده يترى حلو الناس تهدر ولد ما يدوفين مركي ولد الكسوب حدا ما يتجدن ولد الشركة ودي يا سفيرودي وحكوا لي أهلين وحن وين هو الشركة وحن مسوقر وين وديدنا دورد كينيا أربعة راح مركا أنا عرفت كل بين الشركة وحن له ماشي كلا لقي اعتراضان كلا أنت ناس دولة بديدينه وحن دورنا هنا هذا أو هذا كي يستان ديار بالون waxay su'aashaan annagu iyaga wada hadli mayno si Turkiga la oran maayo ordo markaa ku murmo waxaan u baahanahay guddi caalami oo adag oo wax kala goyn karta oo gartayda kalena karta aan oranin ordo halka ku sheekaysta sharcigaas tagi mayno hore lagu daalo wada hadlo oo sheekaysta dhinaca kalena farmaajo ayaa khudbad ay ka muuqatay siyaasad la'aan iyo been cad oo daacadnimo ka maran tahay ka jeediyay Muqdisho waxa uu hadaladiisa ku sheegay inuu diyaar u yahay wada hadallada Soomaaliland isagoo waliba shalay ballan fur beesha caalamka ku sameeyay balan dhigeysano wixii isaguna Muqdisho ka jeediyay waxa loo baahan yahay in runta la wajaho oo si walaaltinimo leh wada hadalkii hakadka galay halkiisii laga sii wado la isxog waraysto la daaweeyo nabaradii laga dhaxlay duruufihii adkaa ee ina soo maray waxa dawladdu diyaar in la lafago oo mid la soo dhigo wax kasta oo lagu kasban karo ama kalsooni lagu siin karo shacabka walaalaheena ee Soomaaliland daacadnimo la'aanta ka muuqata farmaajo kuma koobna mawduuca Soomaaliland iyo Soomaaliya la xidhiidha oo kaliya si dalka uu ka arrimiyo laftarkiisa ayaanu daacad ka ahayn inuu nabad helo sida ay dunidu ku eedayso bal u fiirso sida ciidamadu ula dhaqmeen nin la sheegay inuu wariye ahaa oo ciidamadu si arxanka ka baxsan ugu dhex garaaceen xafladoodii taas bedelkeeda dabaaldegii Hargeysa ka dhacay farxadda maashaad iyo isku duubni aan dareen lahayn ayay ku soo dhamaatay madaxweynaha iyo dadkiisuna waxay ahaayeen kuwa isdhex socda ilaa inta dib loo saaray calanka jamhuuriyadda Soomaaliland